arrintan waxaa mashruuc ka dhigtay oo suldaankana afku yidhaaha madaxweynahana afku yidhaaha wasiirka ganacsigu muddooyinka ugu dambeeyay gobolka Awdal buu ku sugnaa anigu suldaanku waa adeerkay rumaad xogogaal baan wahay duruuftiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay 10 habeen ka hor wasiirka iyo maayirka Boorama waxay jufadaanu ka soo jeedno calaa shakhsi ka wariyeen $100 waxayna noo sheegeen in suldaanka lagu amba bixinayo lacagtan Mareykankii ku noqonayo xukuumadda kulmiye wixii ka dambeeyana suldaanku soo noqon doono oo wixii nidaamka loo marayo iyo sida loo xalinayaba marka laga tashan doono deeto lacagtii waa la ururiyay lacagtii calaa shakhsi $100 baa laga qaaday sidii loo kala jeebinaba lacagtii loo bixiyay marka dadkan ka soo jeedayna nabad bay diyaar u ahaayeen in suldaankiina iska noqdo inta wax hagaagayaana uu halka dibadda jooga bay ujeedadaydu iyo qorshaygu ahaa lacagtii waa la ururiyay 2 habeen kadib magaaladii baa la soo weeraray su'aasha isweydiinta badan waxay tahay lacagtan la ururiyay ma hub iyo rasaas baa la siiyay in magaalada lagu soo weeraraa ay qorsho ahayd wasiirka iyo maayirka ay su'aashaasi dul taalaa hay'adaha ku shaqala kala xisaabtami doona amaanka waxaa iyadna jirtay jabhad kale oo ka dilaacday gobolka Awdal oo beesha bariga Awdal degtahay ay ku dhawaaqeen oo muddooyinkan dambe ku jiray iyaguna buuraha bariga Boorama xukuumaddu wafdi bay soo dirtay uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga taliyaha asluubta libaax rayaale iyo niman dooro deegaankayga ka soo jeedo xukuumadda ku jira loo soo diray xukuumadda iyo beeshii way wada hadleen waxaa la isku afkartay in nabadii aynu ku soo caanamaalnay 28 sano Soomaaliland jirtay baynu isku qancin jirnay lagu soo noqdo qoriga iyo buuraha la galayo jabhadda la sameeyay laga soo noqdo hase yeeshee reerkii way soo noqdeen nabad bay qaateen wasiirka ganacsiga oo aaminsan in kursigiisa lagu soo duulay oo heshiiskan Soomaaliland iyo deegaankan ay galeen uu qaatay inuu yahay in kursigiisa laga qaadayo maadaama aan isku deegaannahay in la siinayo beesha kale ayaa waxa uu sameeyay abaabul bu magaaladii iyo kacdoon bu ka sameeyay isagoo adeegsanaya in kaadirka rumaad uu yahay maayirka Boorama waxaan qabaayun aaminsanahay wasiirka ganacsiga iyo maayirka Boorama door muhiim ah bay ku lahaayeen arrintii jabhadu ay ku soo gashay gobolka Awdal waxayna u qabeen oo u haysteen in kuraastooda lagu soo duulay oo reerkan kale kuraastan duulaan ku yahay kuraasta inta loo tagay mas'uuliyiin qaran weeyaan nimanka aad ku eedeynayso inay ay mashruuc ayagu furteen uu yahay suldaanku arrinta maxaad ku cadeynaysaa cadeynayado haysa adigu waxa anugu xoogaal baan wahay xoogaal baan wahay wax walba halkay taagan yahay ka socdaan baan ogahay waqtigeeda iyo xilliga ay ku haboontay hadii sidan wax loo wado laga joojin waayo ayaanu cadeymay documentiga iyo cad warbaahinta horkeena laakiin anaga hubna suldaankuna anigu adeerkayay labada ninka wasiirka iyo maayirkuna aniga adeerkayiin sida wax u socdaana waan ogahay iga door muhiim ah ku lahaa in Awdal la soo galo oo jabhadu soo weerarto marka lacagtaas waxaad sheegaysaa in hub la soo siiyay hubkuna waxa kii lagu weeraray magaalada Boorama su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay saan hore u sheegayba anaga lacag baan laga qaaday waxa la sheegay in suldaanka lagu amba bixinayo 2 habeen kadibna magaalada la soo galay qofka aqliga wanaagsan lagu garaya marka saaseed jira mas'uuliyiin kale oo wasiirra agaasimayaal oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Awdal iyaga laftirkooda yaani qayb ka hay hada uga tagtay waa runta constituency-ga way ka soo jeedaan oo deegaanka way yihiin dhiiga dhacana waan wadaagnaa laakiin wala sii kala yahay imka hawshan suldaanka baxay iyo reerkiisa ayaa lagu koobay madaxweynuhuna wafdiga inta uu soo dilayay isla deegaanka aan bay haayeen haday kuwii bariga ka baxay ay tahay iyo hadii arinta sultaan wabra tahayba isku hal waftin bay marayay marnaba labada wasiir kale deegaanka ka soo jeeda looma soo dirin hawsha marka waxa halka ka cad in la doonayo arintan in lagu xaliyo deegaanka hawshu ay dhinacooda ka socoto laakiin marka dambe timaado tala qaran waa khasab in la soo diro wasiirka beeraha iyo wasiirka caafimaadka oo iyaguna doorkooda ka ciyaaraan لكن هلك وسيرة حادك سكوت يسان نقول بتهيدي عدين ما هي نصات شيء يصير هذا إيريسان وسيرة ده عن حاد قلنا تهران كمتشرة حيني حلا وسيرك جناسك يا سوما
wasiirka ganacsigu iyo suldaanku waa ilmaadeen ruma hase yeeshee dee ninkana isagunbaa suldaankiisa ahaa kanna isagaa wasiirkiisa ahaa wasiirkuna waa nin saaxadda siyaasadda ku cusub oo wuxuu aaminsan yahay maadaama ninkan suldaan wabar iyo xataa beeshan kale bariga boorama ka dagaalamaysay waa isku wada hareer marka wuxuu aaminsanaa maadaama kacdoonkii wabar aamusay muddooyinkan dambe oo sidaynu ognahay intaan weerarkan iman ka hor suldaan wabar dee muddo maynaan ogeyn halkuu ku sugan yahay iyo dagaalo uma soo qaadin maadaama agreement ay galeen dowladdii iyo jabhaddan bariga ka dilaacday wuxuu aaminay in kursigiisa xal looga dhigayo dadkan tabanaya waxay cabanayay markaa taasaa keentay wasiirku inuu ku dhiirado inuu falalo amni darro ka bilaabo gobolka gobolka dee aqoon-yahanaa jira saas sheegtayna sheekada lacag ururintu waa sheeko aqoon-yahan waxgarad cid kasta loo ogtay hawa maxay sababta hawa dhallinyaradii ka mid waa hargeysa ku sugan arrintaa uga hadlaysa waxaan uga hadlayaa kolley duruuf baa keento dadkii afka wada xidheen marka haddii dadku wada aamusaan waxa muhiima dee haddii la wada aamuso dhibteeda yaraansa oo wixii la huursadaay qurunkiisuu leeyahay marka niman badanoo jecel inay hadlaan way jiraan laakiin duruuf baa haysa awooday ku hadlaan baan jira marka anu malihii afkii suldaan war baan ku hadlayaa ama afkii beesheedaan ku hadlayaa shaksi reer odan ka mid ah baan xaq baan u leeyahay wax deegaankayga ka socda inaan ka hadlo oon sheego laakiin shalay waxaa hadlay damaareeyo hore wadooyinka haddana hadalkiisaa si arkaysa miyaa la oran karin ininka iyo maareeyo sidaas ku yaraqaansan aniga haddii la eego maareeyaha iyo wasiirka adeerkaya waa nin maareeyaha iga xiga maareeyuhuna siduu sheegay 2018 markuu madaxweynuhu ka soo qayb galay xafladii qalinjebinta jaamacadda Camuud maareeyuhu reerka uu ka soo jeeday way soo urursadeen inuu madaxweynaha doonayay inay la kulmaan oo tabashadooda iyo cabashadooda u soo bandhigaan wasiirka ka hor istaagay oo wari anaa nimatara deeto wasiirku arrintan wuxuu ka dhiganayay wuxuu aaminsanaa uu ilaamka aaminsan yahay reerka iyo madaxweynuhu hadday isgaaraan kursigaaga ayiri galaya marka taasaa keenaysa inuu ka hor istaago wasiirku xilliga ka hadashaan la joojiyay wasiirku dhex kale yaani ka habbooneen tan ka hadashaan kolley walaal wax walba duruuf bay leeyihiin imika ku soo beegantay maalintaana maareeyuu dee nidaamka xukuumadda kulmiyuu ka tirsanaa waxaana loo arkayay dee nin reerkiisii kicinaya laakiin maanta waa shakhsi madax banaano maanta taasaa keenaysa inuu